يا سنجل إيه تليفونك توشك وتعرك عدك إفر منورو يا هلو هلو ها عباينا ماريش وعلى دينو يا ماريش وعلى دي كوسي والله يوعد ماريش وع مريش لا مريش كوسي مريش والله مريش كوسي أنا أقول والله هدوي تقول لي يا تقول ده مقع أو معاوي شمبرت قبته مريش دقيسو هلو ايه مريش قرح لي ما تاني ولقي مقاركنا ورتاي ها قرح لي تقول ما تاي قرح لي ما تاي يا قدام ما انت ولا اي بطل كرسوني مسكو خبتي ذو معاه قرح لي واحد هذا اسكي اوكي مريش دقيسو ملوقة بقى انا هدا كنت عشوائي أبا وانا دقيسو وعلى دي مريش دقيسو محاول قبل ديكر ما يقبطها ورتاي مريش ديكر ما قبط محي دوسة Waxaa ka aaminsan tahay jacayl social media mar hadda caan tahay way dhib badan tahay inaad hesho mise way adag tahay inaad hesho jacayl weliba haddaad tahay gabar iyo wiilba. Hadda maalmihii hore waxay social mediaha qabsadeen qurux ku dhiigle iyo Mariish. Maalimo badan ayay waxay noo soo bandhigeen jacayl inay is jecel yihiin, inay isla socdaan ayagoon afka sheegaynin oo mar walba action na tusinayaan. Haddaba waan ogsoonahay Mariish inay ka baxday dalka aysan Afrika joogin. Yaa bedelay? Dad badan ayaa dhihi jireen Mariish way ka tagtay qurux ku dhiigle. Mariish way ka baxday qurux ku dhiigle iyo boos ka soo gelin doonaa. Adoon fikirka boganin gabar waxaa soo baxday la dhahayo Misbaax. Dad badan oo arki jireen inay isu soo duwi jireen muuqaal laakiin waxay ahayd walaaltinimo oo romantic jacayl maynan ku jirin. Hadda waxay noqotay qurux ku dhiigle in uu maalmahan dambe la soo dhigo Misbaax. Dad badan ayaa saaid uga xumaaday markay arkeen qaabku uu la dhaqmayo qurux ku dhiigle gabadhan Misbaax, gabadhan cuswan. Dad badan ayaa dhaheen qurux ku dhiigle adiga maxaa tahay xiisalow, qof xiisalow ah miyaa tahay? Shalay gabadha hataa ma maqan. Gabadhii maalimo badan aad jacaylka isla dhigayseen usbuuc xataa ma maqno. Maxaa keentay inay isbedesho gabadhan saaid ugu dhawaato sidii labadiina romantic ka dhexeeyo. Hadda Mariish iyo qurux ku dhiigle si walbo loo dhaho in mar walba jacaylkoodii maalintii soo istaageen maynan ka hadlin, mayna dhihin aniga iyo Mariish waa isla soconnaa. Qurux ku dhiigle saas ayuu single ku yahay, gabar walbana wuu la jaan qaadi karaa. War qof walba og yahay labadooda waxa ka dhexeeyay. Maalintii ay baxaysay waa arkayseen indhaha murugta ka muuqdeen. Sidii Aamiin ma ahayn. Aamiin waa arkaysay waxa ka dhexeysay walaaltinimo laakiin qurux ku dhiigle wax weyn ayaa jira oo dad badan laga qariyo. Hadda Misbaax oo maalmahan badan aad ku aragteen qurux ku dhiigle iyo Aamiin oo mar walba wax isla soo duwaan maadaama ay Mariish joogin. Siduu u dhaqmayo miyay qurux badan tahay? Haddana waa aragteen Aamiin ayaa jooga meesha si walaaltinimo ayuu u dhaqmayaa, caadi ayuu iska ahay. Laakiin qurux ku dhiigle waxyaalo kale ayuu hoos ku wataa. Waxay eg tahay qurux ku dhiigle in Misbaax ay tahay jacaylkiisa cusub. Laga yaabaa bilooyin kadib inaad arki doonto xitaa guurkooda. Waxay tahay in Mariish aysan jacaylkii isku fahmi waayeen maadaama ay kala noqdeen dad ku kala nool laba adduun. Jacaylka inta badan
muxuu raagaa markay dadka isla joogaan. Way yartahay in dad kala fog oo kala qaarad degan in dadka markay is arkayaan ee isla joogaan wax badan ayaa abuurma. Laakiin dadka markay kala maqan yihiin ee kala adduunku kala nool yihiin inta badan ma raago oo isma fahmaan. Waqtigii ayaa kala ah. Midda kale dad cusuban hadda u aragteen misbaax iyo qurux ku dhig way isku soo dhawaanayaan. Sidaas oo kale Maariish ayadana dad kale ayay la jaan qaadi doontaa. Uma malaynayay in qurux ku dhig iyo Maariish haddii isku soo noqdaan waxaa u malayaa wax isku soo noqon doonaan. Anaguna jecel in labadooda maanta ay aqal galaan sida lamaano badan aan jecelnahay. Laga yaabaa in ayagoo laba kala qof wataan in ay isku soo lawdaan. Hadda oo aragteen misbaax iyo qurux ku dhig dad badan ayaa dhahayaanba waa isku soo bixisiin, waad isku egtihiin, waa shidantihiin, labadiina saan ahay. Ma u malaynayay in Maariish Beauty ay ku soo noqon doonto qurux ku dhig siduu ku ahaa. Jaceylkii laga yaabaa wax walba hadda inay noqoto walaaltinimo. Maariish Beauty waa gabar qurux badan. Qofna soo sheegin in la qabo. Waxay u egtahay inay tahay single. Yaa daanayo gabar shaqaysanayso qurux badan oo iska dhicinayso dunideeda. Dad badan ayaa uga shakisanaa inuu wax ka dhaxaynin ay ahaayeen dad soo wada shaqo tageen oo qarinayaan jaceylkooda. Inta badanna waan ogsoonahay social media inuu fake yahay oo dad badan ku qaraabanayaan lamaano jaceyl oo ka gadayaan dadka wax been ah oonan wax iskayn jirin. Kaamirada markii la daaro sida caadi dadka u soo shaqo tagayaan. Waa duni cusub. Inta badan dadka caanka ah waxay fiiriyaan wax dadka ka gadmanayo, wax views lagu raadsanayo ayay raadiyaan. U fiirso dadka inta u badan mar walbo wax markay isla duwayaan ee muuqaalo sameynayaan waxa u badan dad waxay fiirinayaan dadka video ugu views badnaa yaa joogay maxaa la sameynaya muuqaalka muxuu ka saabsanaa. Inta badanna dadka waxay jecel yihiin daraamaha jaceylka beenta waxaan la abuurayo. Way yartahay dad fiirinaya lamaano la ogyahay si dhab ah inay isla socdaan. Adiga maxaa is leedahay misbaax ma qurux ku dhig ayay u dambeyn doonaa. Maariish maxaa ku dhici doonaa.